aad iyo aad yaan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo quruxda badan aad noo soo dhawayseen aan aaminsanahay ilaa saaka aroortii inaad noo taagneedeen cadceed aad noo taagneedeen waxaan iloobi karna ma aha waa maalin taariikhi ah oo aan nimid halkan sida wanaagsan aad noo soo dhawayseen runtii waxaa la siiyey cashar aanan hore u ogeyn inay ahayd magaaladii shabaabka ugu horraysa oo la dagaashay oo ka bixisay oo ah meeshii xuduudka ahayd xuduudka ay ka bilaabatay darbigii laga dhisay ay u gudbi waayeen qolooyinkan khawaarijta ay u gudbi waayeen gobollada intiisa kale ilaa Puntland ilaa waqooyi u gudbi waayeen taasina runtii waxay ka turjumaysaa geesinimadiinna Soomaalinimadiinna iyo diin jaceylkiina ka turjumaysaa welina ilaa hadda ay ku soo noqon waayeen ilaa hadda oo aad u tihiin asaaska nabadda galmudug aad u tihiin aad iyo aad yaan kugu mahad celinaynaa meelahan soo marnay kullina waxaan kala kulannay soo dhawayntan iyo mid la mida laakiin meeshaan sidaan arko waxaa ii muuqda energy xamaasad badan baa ii muuqata oo aad iyo aad u badan walaalayaal hawl adag baa noo taalla hawl adag ayaa noo taalla oo ugu horeyso inaan ka shaqeyno midnimada galmudug iyo inay noqoto meeshaan midnimada iyo isu keenista iyo dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo idil madaxweyne ilaahay khayr ku siiyo xilkaadayda ilaahay ku ceebeeyo ummadaada ilaahay ku ogolaysiiyo muslim iyo gaala allah ku ogolaysiiyo sidii lagu doortay oo aan la socono oo Soomaaliya intay joogto lagaaga wada hambalyeeyay oo lagaaga jeclay kii ku soo baxa allah ka dhigo meel kasta Soomaaliya joogto inta madaxweynaha Soomaaliya tahay aad u dhaxayso meel walba waxaan rajaynaynaa inaad ku tagi doonto inaad baahidooda buuxin doonto intaas rajaynaynaa madaxweyne soo dhawaaw ilaahay khayr ku siiyo cadowgaagana allah qabto wax khayr qaba allah ku siiyo ilaahay ku kalmay madaxweyne waxaan ka rabaa madaxweyne quraanka kariimka iyo calanka Soomaaliya waa kaas